بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. درسنا حكب اللابن آيات لبب قل ليصدن يصدحات سورة البقرة كمدة آياته هو إلهي مركو إنه قصوا الشيء أحكامتي كساب سنيد فرينكا يحرميه لحريري آيادا إلهي وحينه قلت الماما يا هدي فرين ودعو المنا ماشي أي جوغين أو لنوجيناهي هو يوجينك وحيابها لوغا باهن يهي يوالدين تأبيالك وحا لوغا باهن يهي حالة داسي مركا يدعضو inay tahay hooyaduna inay ilmihii nuujiso oo ninkii waan kala tagnay daraadii ilmihii yaraa inay u cadaadinin ninkuna islaanta waan furay daraadeed inuu nafaqada iyo beelkii uga goynin inta loo nuujinayo ilmihii inuu nafaqadii uu bixiyo ahkaamtaas ay aayadan ku saabsan tahay. ilaahay wuxuu leeyahay wal waalidatu hooyooyinka wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna caruurtooda xawlayni 2 sano كاملين أو بوحة أي نوجينيان يعني نوجينيان أو خبر كساس لو شيء وحال لجوضا على سبيل الأمر سي أمر على جوضا أو معناه ذو يهي والدينتو هو يوينكو عرورتوضا هنوجيين لبصنا أو بوحة هذا اللي قاعد علمك عافماتك نوجينتو قيمها أولادها علمها يهو يذبا قرآن كأننا وقت هرأي يسيت الماء مايا يعني نوجينتو قيمها أولادها علمها هو يدي مركا مثلا وكل عاي فرينكو علمها نوجينيسي حناقة عينينك أوقبت السيئنا علمه وكل أربعين أيها وحال حسوسنا يا والد نمذا يا عاطفة هو ينمو مركا صاحب الله الله هو يأياتها حسوسنا وأيالي والوالدات إنك صنينك كلا تكتين حدنا كلا تقاسي مكينا علمه إناد هو ينمتك كلا نقطه عظم با هو يوقع مركا قلنا حريصه نوجونا أكسن أو لبسنا جاريسا ilmihi hooyo nuuji way macnaha wal waalidatu hooyooyinki wax dhalay yurdicna awlaadahunna caruurtooda ay nuujinayaan bimaana han nuujiyeen xawlayni 2 sano kaamilayn oo buuxa han nuujiyeen marka muddada oo nuujinta ama ridaacadu waa 2 sano liman araada qofkii doona an yutimma in loo dhameystiro ar-ridaacata nuugista waa heshiis yani ay ku heshiinayaan hooyada iyo aabaha ilmahani imise ayaa la nuujinayaa maadaama la kala tagay waxa laga yaabaa inuu rabin odaygu inuu yani lacag badan ay ku sii socoto 2 sano bil inuu bixiyo inuu iska soo gaabiyo raba mesela uu yiraahdo 1 sano igula heshiiyaan ku nuuji ama 6 bilood nuuji yani asalaha meesha ugu koreysay waa 2 sano 2 sano waxa iska leh oo loo gaarsiinaya yani cidii doonta hadii ayna doonin oo 2 sano liima nuujina uu yiraahdana markaas waqtigeeda ayay leedahay laakiin qofkii raba إلى مدة bay nuujintu ay soconaysaa haday tahay waa 2 sano liman arada qofkii raba an yutimma ar-rida'a an yutimma inuu dhameystiro ar-rida'ata nuugista ama nuujinta wa 'ala al-mawlud lahu midkii loo dhalay korkiisa waxa ahaaday rizquhunna bilkooda iyo wakiswatuhunna aratirkooda bil ma'ruf si wanaagsan hawshu way kala qaybsan tahay hooyadii la furayna waxa laga rabaa inay ilmihii nuujiso aabihii ilmahaas dhalayna waxa laga rabaa hooyadaas ilmaha nuujinaysa iyo ilmahaas ay nuujinaysa kharashka ku baxaya oo biilka iyo aradbaxa in uu bixiyo waxa loogu bixiyo waa al-mawlud lahu kii asaga loo dhalay ayaa leeyahay waxa loo leeyahay yani labada qof way wada dhaleen oo ilmahan ayaga ayaa aabiyo hooyun baa loo kala yahay laakiin markii hal abtiriyo la yiraahdo ilmahan abtirkiisu meesha uu maraayo hooyada kuma abtirsadee aabaha ayuu ku abtirsadaa maadaama aabaha uu ku abtirsado adiga ayaa lagu dhalay oo abtirkaaga ayaa la soo badiyay saasa lahu loo leeyahay وعلى المولود كي لو دلay lahu asaga loo dhalay waxa korkiisa aaday rizquhunna bil kooda iyo wakiswatuhunna aratirkooda bil ma'ruf si wanaagsan yani si aan ciriiri ahayn israafna aan ahayn oo lagu cadaadinaynin ayaa looga rabaa inuu bilka iyo dharkaba u bixiyo
لا تكلف لكلف مايو نفس النف إلا وسعها تبرتي لمؤجي ونكن يعني مركي المها يعني لون نوجينايو أو بيننا لجربه الرتيرنا لجربه وحوسن قاذي كريم لو حكوم مايو أو لما ده يسوع بيسن حوالي بدن بحي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يعني كي حوالي بدن هيستنم حوالي بدن قدر كوذا وحو نجمة هكبحيو كي الوعري نرش وحبيسننا انت او هيسته يعني وحكبحيو وحوسن هيسن لو كلف مايو نف وحينها اين هيسن لو ما شقين ما يدينتن وادين حريص بدن لا تكلف نف لا كلف مايو إلا وسعها أوديدا أما تمرتيدا ما أوغي لا تضار لا دبي مايو والدة هويو بولدها المهدا لو دبي مايو ولا مولود له من أسغا لو دلay oo aabana la dhibi maayo biwaladihi ilmihiisa lagu dhibi maayo bimaana waxa la diidayaa meeshan in la kala faa'iideysto oo qofka caadifadiisa laga faa'iideysto oo hadii la arko mesela hooyada ina ilmihi jeceshahay oo isku dhajinayso in lagu cadaadiyo oo lagu dhibo oo leeyahay ilmihi waan ka qaadanaya yani ilmihi macna kulama joogayaan oo ay leedahay ilmaha yaan la iga qaadan waa ilmo yar aan nuujiyo aan kuriyo hala ii daayo ninkan hadii la kala tagay meesh doon asaha ka dhaw waa la kala tagay laakiin ilmahayga hala ii dhaafo ayadoo sidaas in liyaado cadaadis looga dhigo maya lagu dhaafi maayo si looga arguto oo furiinka arinta keentay iyo gurigii burburay haday iyadu qayb ka ahayd in lagu cadaadiyo taas lama ogolo dhanka kale ninkii oo ilmaha meel uu geeyay aan lahayn hooyadii ilmaha dhashay cid u dhaanta male markay aragto dhibaatada haysata ninkan inuu yani cid uu geysanay aysan jirin hooyadii ma joogto ayidii ma joogto cid kale oo qaraabadiisa oo haween oo haynaysa male waa kaliyi markay aragto duruufta haysan inay tiraado wada ilmahaaga waxaan ku nuujinayo male hadda qaado meel uu geeyay aysan jirin oo intuu qaado si uu yeelo una gelin oo la dhibtoodo taasan lama rabo muslimku inay isdhibaan ma aha inkastoo la isfuray oo la kala tagay oo asaabto ay kacsan yihiin neerfuhu oo la isu xanaaqsan yahay haddana si kastoo ay tahay lagama tago yani ihsaanka iyo wanaaga qof badnaca u jilicsan yahay loogama faa'iideysto hooyada ilmaheeda laga qaadan maayo hadii ay rabto ilmaha inay haysato aabuhu ilmuuna qaadi karin lagu rari maayo ee waa loo hayn la tudaar la dhibi maayo waalidatun hooyo biwalidaha ilmaheeda lagu dhibi maayo oo ayadoo u baahan oo ilmaha yaan laga qaadan maayo ولا مولود له من أسنى الله دلي أبيه أسنى لبي مايو بولده الميس لقول لي مايو أسوأ ميرو جي أنا هيسنين لقول مايو قال الله مايو وين ليسون حريصه وظروفته اللي تحجى اليوم وعلى الوارث متك نحلا يكرك سنة وحق هذا مثل ذلك السداس وكلا سو هذا لما ليه مثلا أباها وحال جربها المهاسي أنت لون نوجينايو إنه بحي بيلكي يدرك إنه بحي على جربها هدي أبيه أو دينته oo ilmahan dhalay oo asana uu biilka u bixin jiray aabahan haduu joogo aabihi oo ilmahan yar awowgii ah biilkii waxa laga rabaa awowga ayaa laga rabaa oo booski aabaha asaga istaagayaan saas waa la yiri ama waxa la waarisi macnaha midka dhaxlaaya ilmaha qofka dhaxlaaya oo dhaxalka kule dadkii dhaxalka lahaa ayaa laga rabaa almuhim aabaha haduu joogana biilka oo ilmahan la nuujinaayo aabaha laga rabaa aabaha haduu geeriyoodana dadka ugu soo xiga ee dhaxalkiisa iska leh ayaa booskiisa buuxinaayo oo ilmihii biilkii laga bixinaayo ee hooyada nuujinaysa la siinaayay ayaga ayaa bixinaayo cidii aabaha bedesha ayaa laga rabaa waxa la waarisi midka dhaxlaayo korkiisana waxa aaday midul daalika sidaas oo kale fa in araada hadii ay doonaan fisaalan goyn ilmihii inaaska laga gooyo hadii ay aabihii iyo hooyadii sidaas ay jeclaystaan عن تراض رالي أهان شو حقين أرنتاس أي كل عضو منهم حقه ذا كأعطي وتشاور يتشي أي كتشر أرنتاسي فلا جناح عليهما دم بكركه ذا ما أهانين بمعنى بحال السوق المهن يري إلا النوجيو لبدي السنة أيضا اللي أو تقريبا معناها مثل سنة أو رماضي سنة أو دمية يا ويتشتين أبيه يهويدي وحيكون شيئا يعني هل كان إنه جوجي نوجينتا سي odayga beelka laga rabay ka saara oo uga haro oo nuujintii halka loogu joojiyo hadii markii intii laga wada hadlo ma ka joojinaa halkaas ma ku joojinaa ha ka jooji naaski ka go bas waayahay way ka goysay bas caanihi ayadana markay ka goysay naas ay nuujinaysa male haday sidaas doonaan ilaa laba sano gaarsiya la dhihi maayo haday ku heshiyaan laba sano ka yar in naaski ilmaha looga joojiyo waa looga joojin karaa marka fa in araada haday doonaan
فصالا ناس كجوين هدي دونان المهم الناس لا جويو ونوجنتي اللي جوجيو هدي أي دونان عن تراض منهما رالنا يسجيهين وأبين أو رالي هاي هو يدين أي رالي تاعي وإنه هشيس لبض أي كويهين هدي رالي سجى نقدان وتشاور هذا أي تشتان عن تراض منهما وتشاور رالي عن شو حق ذكاء هو يدي أبيه وضتش أي وضتشتين أو كتشتين المها ناس إن لصي وضاي إلا جوجينايو هدي أي كويش يعني إلا جوجيو فلا جناح عليه ما دم بما أرين كاس الله ما ده لو دي سنة لما جارينه المها يا ظلمين يسينه حق المها بنيرو قد عيسينه لما ده سنة إلا جارسية لما ده هدي كويش يعني لما سنة كير إلى كوجيان الناس نوجنتي والوجوجين كرا وإن أردتم هداد دونتان أن تسترضعوا إن أنو جستلبتان أولادكم عروتين عد إنو جس هداد دونتان أدوك هذه سان وهو يوضع عناهين فلا جناح عليكم دم بكركنا ما أهان إذا سلمتم هداد سيسان هو يدي ما آتيتم وحي عاد سيسان كله شيسان بالمعروف أو معروفة يعني المهي أول النوجينايو يا وحصوك لحق لي خلاف هو يدي يا أبيه هو يدي وحيدا مع ذي العكتين يكون درته oo tiraado meeshii bishii aan kuugu nuujinayo مثلا $100 waxba isbedelay marka waxaan ka rabaa inaad 100 kale ku darto oo aad ka dhigto 200 asal markaas uu yiraahdo ma kuma dari karo duruufteeda iyo masaamaxayso 200 ma bixin karo ee hadaad sidii hore iigu nuujinaysay 100kiina waan ku siinayaa iigu nuuji hadii kalena waan ka wadanayaa ilmaha oo islaan kale oo 100kaas ama ka yar iigu nuujisa ayaan helayaa ilmihii isi hadii wada hadalkaas intuu dhaco يعني وايه gabadhii ay tiraado anigu hadaad 200 isiinaynin tusaale ahaan bishii yani kuma nuujinayo wax walba way qaaloobeen waxbaan ku daray yani biilki aan ka qaaday hadaad wax ka dhimaysid anigu iga soo dhamaatay ilmahaaga meeshii kale aad geysanayso ama ku nuujinaysa geyso ama lacag iigu dar ama iga wada markii halka soo gaarto hadaad doontaan marka weyn aragtum hadaad doontaan أن تسترضعوا إن النوجس رادسان أولادكم عرورتين عد كلا أذين نوجسة إن الرادسان دار دمعان فلا جناح عليكم دم بكركين ما أهان الأواديري كرتانهم إن تتكودان هو يدي إسلام كلا أو الله شيسين إن إذين نوجسة ولوجين كرتان لكن شرط وحاء إذا سلمتم هدي فرت كسرتان هو يدي نوجينيسي ما آتيتم بالمعروف وحي عدسيسين بمعنى وحي كل شيسين وحال إسكوجا يعني بشي إن لسيو تسالها مثلا هو يدا نوجينيسا المهاسي $100 إن لسيو والهشين وايو إن لكلا تقو أو يعني المها ميلك للجيو أيا لقو عن صدي أيضا هو يدي المها بشي أي دين كولا ذهب أو بشي هو النوجستي أي المها كولا نوجسي لعكت هذه على نسكب حنين المي وان كاوضنا يا صورة قل معه وحي لما تاون قولي إجارة كجرتي إجارة كاسينات كبح نارته وقولي كلا أدكتي يعني هورت إجاركي وقولي كوا جبه لقولها اسكبحه markaas ka bacdina guur laakiin aad ijaarkii la guurto lagama yeelayn hooyadii ku nuujisay ayadoo nuujintii kugu leh adoo nuujintii hore iska bixinin ilmihii waan ka wato islaan kale ay nuujinaysa lagama yeelayn meeshan waa mucaamalaad qof walba waxa rabaa xaqiisa in la siiyo marka waad ka wareegi kartaan hooyada laakiin waxa sharti ah inaad siisaan wixii aad hore ugu heshiiseen dambi ma inaad ka wareegtaan laakiin sharti waxa ila sallamtum hadaad siisaan ma aataytum wixii aad siiseen oo macna kula heshiiseen hore waxa loo siiyo liskooga قيمة يعني معينة إلا السيو هذا قيمة معين كأد فرت كسر إنسان بالمعروف سوى لك أنا كوسين إنسان مركز سكب حسن خرج كهراء اللي كلها المين وتحسن كرتام واتقوا الله إلهي كعب صدا قرآن كانوا سوى ضدك يعني مشاكل كل وحليو واحد كلي الوحل لينك روحيتها روحوا والبقين إلهي كعب صدا روحي رب إنه خيانة أما إنه واحد دبعتيه ودبعتين كرا استعدادك وكل دبعتين لها خيانة دي أسبابته قصة لها يعني قفكم ويكون جرتان لكن واحد لو جبت بالها وحيتها روح والبا أسوأ أن كعب سنين أسكر إيو بوليسا قوانا أيو هبلو أي أساس كيلا يسون كعب سنين وحي أحكام إسلام كأوجدي الله كعب سدرادي إنه يعني سيئلا لوحي حماتا إلهي إنه كعب صدق هذا حقوق أيها الشيء إلهي كعب صدق أيها لوسو جمجمينهم وحلا لوسو جمحتهم هو يدعو إن إنك دبتو وما أوفر أي عداديسو ومر والبقيش دجلس لمرة إنك ما دام أصلا سهانتي أوفر إنه عداديو أو علمه وكقاطه أو العكس يعني وسيناء وكل عداديو لمرة واتقوا الله إلهي كعب صدق
ruux walba hadduu ilaahay iska ilaaliyo oo alla ka cabsi wuxuu sameynaya u sameeyo arrintu way xalismaysaa marka daawadeenu waxay tahay mushkil kasto ina qabsata waxaan ku xalin karnaa ruux walba inuu ilaahay ka cabsado oo hebel iska celiyo hebel ku xumaantu iska daayo ilaahay ayaa ku jeeday ruux walba xumaato dadka kale ha u maleegin ilaahay laga cabsado wattaqullaha ilaahay ka cabsada wa'lamu ogaada anna allaha ilaahay bima ta'maluna waxa aad samaynaysaan basiirun ilaahay wuu u jeedaa marka khalaas maxaa dhimanba hadii lagu yiri ilaahay ka cabso wax alla waxa samaynaysana ilaahay wuu u jeedaa maxaa sameynaa bin aadam daciif ah oo markaas arrin ku diidan oo ku yiri arrintaas ha samaynin yaa marka uu ku jeedo arrintii ma samaynaysid waxa la samayn laadahayna ruuxii diiday ayaa meeshan taagan hadaad samayso ama waa lagu xiraaya ama dhibaato kale lagu geysanaya maxaad u malayn khaaliqu hada al-kown ilaahay oo ku jeeda wixii oo ka reebay inaad hadana samayso taasi waa dhib marka ilaahay ka cabsada waxaadna ogaataan wa'lamu ogaada anna allah ilaahay bima ta'maluna waxa aad samaynaysaan basiirun ilaahay waa warkaay intaas qof waxay uga filan tahay dambi walba oo gali lahaa xumaan kasta oo sameyn lahaa halkaas ayuu kaga joogayaa saasa waxa leedahay shariicada islaamka isku xukunkeeda iyo qaanuunka bini aadamka uu sameeyay isku xukunkiisa waxay kula duwan yihiin qaanuunka bini aadamka uu sameeyay ilaalintiisa waxa u xilsaaran hay'ado gaar ah oo inay ilaaliyaan qaanuunkaas oo cid ku xadgudubta ay qabtaan ayaa u diyaarsan laakiin shariicada islaamiga ilaalada koobaad ee qofka xumaatada ka ilaalinaysa waa damiirkiisa iyo alla ka cabsigiisa iyo in qalbigiisa uu ku jiro ilaahay inuu u jeedo marka ilaahay miyaad ka dhooman kartaa adiga habeen iyo maalin iyo mugdi iyo iftiin ilaahay waa isugu mid sawaa'un minkum man asarra alqawla ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار marka shariicadu dadka waxay yani ku celisaan damiirkooda iyo iimaankooda iyo alla ka cabsigooda hadii dadka marka waxay aaminsan oo shariicada lagu maamulo dhibaatooyin badan ayaa xalismaya waxayna ku xalismayaan in askar badan la diyaariyay ma aha damiirka dadka oo la diyaariyay ayay wixii ku xalismayaan marka wattaqullaha ilaahay ka cabsada wa'lamu ogaada anna allaha ilaahay bima ta'maluna waxa samaynaysaan basiirun wa arkaay walladina yatawaffawna minkum aayadan waxay ka hadlaysaa haweenka laga dhintay oo nimankoodu ay dhintaan dhimashadaas kadib ahkaamta ka dhalata oo ay ugu soo horeyso arinta la yiraahdo ciddada ama asayda inta maalmood ee arintaasi ay soconayso ahkaamta ku saabsan nin kale hadii guursashadiisa ay u baahato goorta loo ogol yahay inay nin kale guursato ninkii dhintay kadib ahkaamtaas ku saabsan ay aayadahana ka hadlayaan ilaahay wuxuu leeyahay walladina kuwi yatawaffawna al-oofsanay oo minkum idinka idin kamid ah ويذرون كتجاين أزواجا حاسس كتجاين يتربصن ويسوعيان هوين كاسي بأنفسهن نفطه أي سوعيان أو ننكل مجورسنايان 4 أشهر أفر بلاد يو 10 يتومنبري الصيد هذا حيسعون إسلامتي لقد انتي أفر بلاد يتومنبري ومدام أمرك هوين إذا أنت هنترسنا يسم وهوين إذا أن أورك لهين waxay tirsanaysaa oo ciidada ama asaydu ay soconaysaa 4 bilood iyo 10 bari laakiin haday uur leedahay ciidadeedu waxay ku ag tahay inta ay ka dhasho hadii mesela marka qaar kood way u fududaataa ninku haduu dhinto ayadoo bishii 9aad ku dhex jirta 10 bari kadib way dhashay ciidadeeda iyo asaydeedu waxay ku dhamaanaysaa 10kaas bari ama taa ka siyar habeen ayuu sii maqnaa ama kaba siyarba markii la soo duugay ee laga soo noqdayba waaba islaantiina way dhashay intaas saacadaha ah ee duugista lagu maqnaa ee wali ayna dhalin intaas ay ciidadeedu ku dhamaatay mar alla markay dhasho wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yad'ana hamlun laakiin haweenka aan uur kala hayn oo nimankoodu ay dhintaan asayda waxay wadaayaan tiradaas oo ah 4 bilood iyo 10 bari walladina kun yatawaffawna minkum la oofsanay oo yadruuna ka tagaayeen azwaajan xaasas ka tagaaya haween ka tagaay yatarabasna way sugaan haweenkaasi bianfusina naftooda ay sugayaan oo niman kale ma guursanayaan 4 ashhur 4 bilood iyo 10 iyo 10 bari fa idha balana haday haweenkii gaaraan ajalahunna ajashooda haday gaaraan oo 4 bilood iyo 10 bari hadii ay u dhamaato فلا جناح عليكم دنب كركينا ما أهانم فيما فعلنا وحي أي سمايان في أنفسهن نفتوضا بالمعروف أو وناجه ومعروف ولا يقانا بمعنى هذا الصيد كنعضو أو لما تراضي أفرت بلاد يتبنك بريئها هوين كاسي هدي أي مركز رواء إنه يجورسدان هذا أنت روح لهشيان أي جورسدان دنب كركينا ما أهانم حيو جورستي إذن كلا دنبه مايو أو دنب معهم haddii ayna guursanino laakiin asayda markay asayda lagu jiray haweenka waxaan loo ogolayn inay dhar qurqurux badan oo labis ah inay qaataan looma ogolayn
laakiin markii asayda ay u dhamaato inay labistaan oo cidii markaas guur danaynaysa ay arkaan oo la sheekaystaan oo markaas kadib isguursadaan dambi ma aha marka ama guur ha ahaado ama guur isu diyaarin ha ahaateen marba haday ciidadu u dhamaato asaydo haday ka dhacdo haweenkaasi waxay naftooda ku sameeyaan oo wanaaga oo macruuf ah oo macruuf waxa laga wadaa macnaha wixii sharcigu uu ogol yahay oo ah dharkii midalan oo haddii xaraan ka ah oo qurquruxda badnaa aan loo ogolay intii asayda ay u saareen ama ciidada ay ku jirtay inay hadda markii asaydu ay ka dhacday dharkaas ay dib ugu laabato oo ay labisato oo niman markaas intay la hadasho oo la isguursado yaani wadadii caadiga ah lagu sameeysan jiray reeraha haday qayb ka noqoto bulshada dhinaceeda ka gasho dambi korkiina ma ahan wixii wanaaga oo diintu ay ogashay haday sameeyaan oo laba dhahay islaanta ninkeeda marba haduu dhintay ilaa ay ka dhimato ayaduna nin ma guursanaysa lama hadlayso sida meelaha jaahiliyadu ay ka jirto oo kale meelaha qaar kood laga sheegay ninku haduu dhinto ayada gabadhiina oo ka dhinteen waxa la yiraahdaa waa in yaani ama isgubto ama yaani isdisho oo la duugo ama se inayna guursanin ba ilaa yaani ay ka dhimato inayna guursanin oo ay tiraado guur waa iga xaraan oo المهم جور يوحي كسب سمر أنت الصيد أي جرته أيون جور كبنانين لكن أنت وحي كدم بيا جواب واحد هديرة تنو الجورسان هديرة تنو يسكدين لكن واحد عدادس لو جدي ده أيضا أما لو قص بايو ما أي جرته فلا جناح عليكم دم بكرك نماهن فيما فعلنا وحي سميان في أنفسنا وبالمعروف وناجا ومعروف والله إلهي بما تعملون واحد سمينا إسلام خبير الله أيو أهذي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به أيضا حكى الله إسلام haweeneyda laga dhintay inta ay ku jirto ciidada 4 bilood iyo 10 bari'a nimanka u imaanaya ama la hadlaaya waxyaabaha loo ogol yahay iyo waxyaabaha aan loo ogolayn waxa wala junaaha dambi ma ahaanin calaykum korkiina hadaad ragii tihiin dambi korkiina ma ahaanin fiima arradtum bihi wixii aad sarbeebtaan oo min khidbati nisaa haweenka khidbadooda ama weydiisashadooda wixii aad sarbeebtaan أو أكننتم أما أتكو قريسان في أنفسكم نفتين أتكو قريسان دنبي كركينا معهانين بمعنى إسلامتي لقد انتي أو كجرت عددي هدي مثلا روح انتو يمادو أو صوى سلامه مركو سلامة الشيكاد وحيابها أو كلاها الله وحقو إنو أباهن يهي أما إنو قوسد إنو ربا سرباب أحضو يراهدو دنبي معها بمعنى إنو مثلا سي سرباب أو يراهدو مركي الشيكاد صلى الله في عنا حالاته سيدتها كدب أو يراهدو كدب إنو يراهدو بريها نرتم أكتهي haweenka waan danaynaay haweenka la danayna ayada ku jirta marka toos uma dhahay adan ku danaynaay ma dhahayo laakiin uu sarbeebaya inuu bariyaan wax ku jiraan ayuu sheegay marka taas dambi ma ama se ma una sarbeebine asagun ba isla sheekaystay qalbigiisa waxa ku jirta gabadhaasi markay ciidada u dhamaato yaa lagaaga hormarin waa inaad adigu geysato codsigaaga oo aad guursato maxay kuugu soo dhacday oo gabar asay ku jirta yani ciddo ku jirtay qalbigaaga markay dhamaysataad guursan doonta qalbigaaga maxay ugu soo dhacday dambi ma ah sarbeeb maxaad u samayseen dambi ma ah maxaa dambi oo la diiday way soo socotaa marka wala junaaha calaykum dambi korkiina ma ahanin fiima arradtum bihi wixii aad sarbeebtaan oo min khidbati nisaa haweenka shukaansigooda ama weydiisashadooda wixii aad sarbeebtaan waadan toos u sheegin dambi korkiina ma ahanin waa haweenka ciidada ku jiray ee ama sayda ku jiray أو أكننتم أما آت قريسان في أنفسكم نفتينا إن أنت أسكو قرستان وهدو إن أتصوبر لكتان أضربتان علم الله إلهي وحقوقيه أنكم إذن كرقة هداتين ستذكرونهن هوانك إن أتكشيكين إيسان إلهي وإذن أوقيه إن أتكور إيسان إيسان وربريان هبلو بالكورن قبل واتي بري دحلاس نينك هذا ودنتاي horta dad balkawaran oo ma loo dadeeyay oo gabadhii bal malaha Allah inaad sheeko wadaan Ilaahay uu ogyahay laakiin hadaad doontaan iska ba sheekaysto oo laakiin ayadoo cidida ayna ka dhamaanin inaad afkiina la baxdaan hayeelina laakiin wixii qalbiga aad ku haysataan wixii sarbeeba yani Ilaahay uu ogyahay dibna malahan alim Allah Ilaahay uu ogyahay annakum idinka satadkurunahunna haweenka inaad xusaysaan oo iska waraysanaysaan walaakin hasa yeesheen la tuwaaciduhunna ha u ballan qaadina haweenkaasi ku jira cidada ha u ballan qaadina guur sirran si qarsoodi ah inta soo soo dhumataan oo guriga uga tagtaan inaad tiraahdo si toosa dhageyso haday cidada ku dhamaato ruux kale meeshan yuna soo gelin aniga ayaa diyaara ila socod diyaar garowga ayaan ku jira alaab gadasho iyo diyaar garow ayaan ku adun baana ku sugaa sidaas oo afka loola baxaya lama ogolo walaakin la tuwaaciduhunna ha u yaboohina inaad guursanaysaan sirran si qarsoodi ah inaad inta ugu tagtaan aad tirahdaan diyaaran ku ay waan ku guursanayaan gabadh cidda ku jirta yani asay wada saaha dhehina illa an taqulu inaad tirahdaan ma ogiyeen qawlan ma'rufan halal wanaagsan
هذا كوناكسن هور الله سو sheegayo waa kii sarbeebta aha bariyahana haweenka waan danaynayadii iyo imise qof ku danaynaysa la arkay iyo asna uu ku jiro hoos uu kaga jiro una cadeynaynin marka si caadi ah u sheegina illa an taqulu qawlan ma'rufan hada al-ma'ruf la yaqaano sarbeeb ina tiraadaan moogi wala ta'zimu hago aansanina uqdatan nikaahi inaad guludaan ama aad xirtaan hatta yabluq al-kitabu ila qoraalku ka gaaro ajalahu xilligiisa yani gabadhii asayda waday in la yiraahdo ya sheekhan soo wada bari ayaa lagu nikaaxinaya si loo nikaaxin cidayba ku jirtaabe marka lama ogolo taas wala ta'zimu hago aansanina uqdatan nikaahi inaad guludaan hatta yabluq ila uu ka gaaro al-kitabu qoraalka waxa laga wadaa imsa ku qoran gabadhan oo ayna guursan karin 4 ashhurin wa 10 ila ay ciidadaasi ka dhamaato 4 ashhurin wa 10 nikaax ridina hatta yabluq al-kitabu ila qoraalku uu ka gaaro ajalo xilligiisa ama waqtigiisa wacalamu ogaada an allah ilaahi يعلم إنه أجيه ما في أنفسكم نفتي إنه واحد كسر إلهي وأجيه فاحذروه كدكتون هذا إلهي لما خيانة كرو جودي إنه واحد كجول إلهي أجيه مرة جودها إسكجابه هيست هذا دونتان أو يعني هاس كشيء لكن سعادة أفكنا ولا بحنا أجاد إلهي نريد كور قبو وعلموا أجاد أن الله إلهي غفور الذنب جدافع حليم أو دلقات بدن إنه يهي مركا غفور وحلولهم يعني دتك اسكمد معها وحلاقيها بقى dadka qaarkiis inayna ku ekaanin intaas hadda la soo tilmaamay ee ama sarbeebta ama noocaas oo kala waxa laga yaabaa inay jibiyaan arinkii hadda oo ay afkooda la baxaan hadii marka ay ka fakato afkaaga aad la baxdo ogo waa dambaabteen toobadkeen ayaa laga rabaa mar dambana u noqonin wacalamu ogaada an allah ilaahi ghafuurun alla dambiga dhaafo xaliim dulqaad badan inuu yahay ogaada درسنا ما أنت شكوى هاي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.